halkan waa cashir kale oo uga hadlayno 8 qaybood hadalka ah. waxaa mareynaa number 7 oo ah conjunction. hadaba conjunction maxaa lagu micneeyaa af Soomaali waxaan leenahay micnihiisa guud waa isku xire. Englishna waxaan dhahnaa connects words, phrases or sentences. wuxuu isku xiraa ama waa erayo loogu talagalay inay isku xiraan, xiriiriyaan. connects xiriirin ama isku xirid waaye. erayo isku xiriiriya ama isku xira. words erayo, isla erayadaas. phrases weero, or sentences jumlado. waa eray loo isticmaalo in ay isku xiraan laba eray oo isku mid ah, ama phrases weero ama oraah miyaa aqsabaa lagu dhahaa, ama or sentences jumlado. erayadaas ayaa rabnaa inaan fiirino iyo siday u kala baxbaxaan. conjunction waxay u kala baxdaa ilaa 3 qaybood. qaybta koowaad waa kuwana, waa coordinating conjunctional lahaa and, but, or, so, yet. intaas waaye waxay isku xiriiriyaan similar things like words to words, phrases to phrases, sentences to sentences. waxyaabo isleh ayay isku xiraan. and Soomaali markii lagu micneeyo waa sidoo kale ama la mid ah, but laakiin, or ama, so sidaas camal, yet wili iyo kuwo kala badan waaye. waxaa jirta mid kale qayb kale la yiraahdo subcoordinating conjunction oo ah isagana wuxuu isku xiriiriyaa waa dependent or independent clauses. clauses waxaa la waa weero ama erayo oo subject iyo verbs leh, ficil sameeya iyo ficilada wato waaye. laakiin si jumladii jumladii way ka yaryihiin qaar. sometimes waa dhammaystiri, sometimes ma dhammaystirno. clause la yiraahdaa. waxay leeyihiin subjectiga qofkii ficilka sameynayay ama ficil sameeyihii, qof nool iyo qof shayba, iyo ficilkiibu wataa. sometimes way dhammaystiri markay independent clause yihiin, sometimes ma dhammaystirno, waa qabyo. haddaba laakiin jumladii ma gaarsiisno, way ka yartaa. waa because maxaa yeelay although, inkastoo, if lacala waa condition, since ilaa, when goortii. eraydaas waaye. sidoo kale kuwo kale ayagana isku xiriyaashaas correlative conjunctions la yiraahdaa jirto. either or, neither nor.